barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo ay weheliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceelaf Weyn iyo waliba saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka ee goobahaas hore ugu sugnaa ayaa maanta soo gabagabeeyay muran maalmihii ugu dambeeyay ka dhaxaloosnaa maamulka degmada Hulul iyo waliba shacabweynaha ku nool degmadaasi. sidoo kalena waxa gudoomiyuhu kormeer ku tagay goobaha caafimaad ee degmada Hulul iyo waliba sida uu u shaqeynayo ceelbiyo dawladdu dhawaan ka hirgelisay degmadaasi. iyagoo amurahaas ka hadlayana waxa hadaloodii kamid ah in aad horumar aad soo qiimaysaan soo gudbisaan haddii laba ku roon yahay dee wixii baahi badan baa taala idinkoo qiimaynaya oo qorsheynaya waa la idinka doonaya hay-adaha laftooda inay la tashadaan dadka markay wax yimaadaan inay la tashadaan iyaduna waa lagama maarmaan dadweynahana waxaa laga doonayaa inay si ixtiraam leh oo qiimaynteeda leh ay isu tixgeliyaan ilaah baa iskiin baday dad waxa tiin meesha wada degan isku mid ah yani harag sakaara ku wada jooga waa Allah waxa idin dhaxeeyaa aan jirin ilaahay baa la baryaa hay'ad yari waxay keento iyo wax bani aadam keeno midna laguma baahibo idinka oo eegaya wax badan waxa la doonayaa inay isu tanaasushaan oo isqadrisaan ba aad iyo aad idinku fiican waana tan idinka doonayo marka ilaahay wax keeno ma aha maqal qaybsanayo ma noqon doonto deegaan iyaguna ma maqli karaan mana aqbali karno wax suuragalna ma aha in beelo iyo ardaayo iyo kooxo wax lagu qaybsado waa baahi wixii qaybi ma la socotaa dadweynow waxa sal u ah khilaafkan labadii qodob ee aynu ka soo hadalnay ee aynu isu sheeganay ee halkana ka baxay oo ahaa wax qaybsiga iyo qaybiyayaasha kowda bisha saddexaad laga bilaabo wax qaybsiga magaaladu wuxuu noqonayaa oo lagu qaybsan doonaa sida magaaladu u kala hooseyso oo ka bilaabmasa miskiin way waqtigan hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo maayarka degmada Ceelaf Weyn ee aanu ugu soo madaxnay degmadan Hulul wuxuu ka kooban yahay 3 qodob. qodobka koobaad waxa weeye arrimaha ammaanka oo kale anagu xaqan ciidan ahaan aan ka socono xaqiisa. qodobka labaadna waxa weeye abaaraha kurgalkeeda iyo degmadan arrimaha yaryar khilaafka imika la sheegay wixii lamada. qodobka saddexaad waxa weeye kiyaanu degmada iyo agaarkeeda ka wadnay bariyahan waa arinta dhuxusha. saddexda qodob ayuu ku dul wareegayay kormeerka yagaan maanta idinku nimi reer Hulul aad iyo aad waxaanu sidaa noogu soo dibad baxdeen ee qorraxda u taagnaydna aad baanu idinka mahadnaqaynaa. Axmed Mursal Askar TV ga caalamiga Universal Ceelaf Weyn.